السلام عليكم. kusoo dhawaada kanaalka ogaalka. maanta waxaan mowduuceena ku soo qaadan doonaa warbixin ku saabsan muslimiinta caalamka. islaamka diinta islaamka waa tan labaad ee ugu ballaaran ama ugu dadka badan dunida. tirada dadka haysta ama raacsan diinteena suuban islaamka ayaa gaaraysa qiyaastii ilaa 2 bilyan oo qof ku dhawaad, waana in ka badan 25% guud ahaan tirada dadka caalamka. tirakoobkan waa xogtan ayaa ah mid la soo saaray sanadii 2015. dadka muslimiinta ayaa inta badan loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah sunni iyo shiico. 80 ilaa 90% qiyaastii ayaa ah sunniyiin oo u dhiganta 1.6 bilyan oo qof, halka shiicadu tahay 10 ilaa 20% oo u dhiganta 200 ilaa 400 oo milyan oo qof. sidoo kale wadamada ay ka badan yihiin dadka muslimiinta ayaa gaaraya ilaa 50 dal oo caalamka ah. islaamka waa diinta ugu ballaaran bartamaha Aasiya, bariga Afrika, waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe. koonfurta Aasiya waa meesha ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dunida. tiro ahaan wax ka badan 30% muslimiinta dunida ayaa ka soo jeeda koonfurta Aasiya, taasoo ka dhigaysa in 3 qof ee muslimiin ah midkood ka soo jeeda koonfurta Aasiya. dalka Indonesia waa wadanka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka. in ka badan 240 milyan oo muslimiin ah ayaa ku nool dalkaas Indonesia, kuwaasoo 13% ka ah muslimiinta kale ee caalamka. sidoo kale dadweynaha muslimiinta ee ku nool koonfurta bariga Aasiya waa muslimiinta saddexaad ee ugu badan dunida marka laga soo tago kuwa ku nool koonfurta Aasiya iyo bariga dhexe. si la mid ah dalka Hindiya waa dalka labaad ee ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka, kuwaasoo gaaraya ilaa 200 milyan oo qof. 15% oo ka mid ah dadweynaha haysta islaamka ayaa ku nool wadamada ka hooseeya saxaraha. dalkeena Soomaaliya ayaa ka mid noqonaya wadamadaasi dhowrka ah. si la mid ah guud ahaan geeska Afrika ayay muslimiintu ka yihiin awood ballaaran, kuwaasoo ku teesan ilaa xeebta badweynta Aasiya iyo bariga Afrika. sidoo kale muslimiin badan ayaa ku nool qaaraddaas Yurub. qiyaas ahaan wax ku dhow 50 milyan oo muslimiin ah ayaa ku nool qaaradda Yurub, kuwaasoo ka ah 6% tirada guud ee muslimiinta caalamka. muslimiinta ugu badan qaaraddaas Yurub ayaa intooda badan ku nool wadamada dhaca galbeedka qaaradda. si la mid ah muslimiin badan ayaa u haajirtay dhankaas iyo waqooyiga Ameerika. ku dhawaad 5 milyan oo muslimiin ayaa ku nool wadamada Mareykanka, Canada iyo Mexico, halka tiro 3 milyan oo muslimiin ay ku nool yihiin wadamada dhaca Latin America. dalka ugu qanisan wadamada dunida ayaa ah dal muslim ah, kaasoo ah dalka Qatar. sidoo kale qaaradan Afrika ayaa ah ama ka mid ah qaaradaha ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka. dalka ugu weyn Afrika ayaa ah dal muslim ah, halka dalka ugu dadka badan Afrika uu yahay ama muslimiinta ay ka yihiin 53.5%. islaamka waa diinta ugu koritaanka badan dunida. xogo la aruuriyay ayaa muujinaya in sanada 2050 ay noqonayso diinta ugu ballaaran ama ugu dadka badan dunida, iyadoo loo sababeynayo bulshada oo ah ama u badan dad dhalinyaro ah.